sidee u fududahay in YouTube channel-kaaga la jabsado. Qaar ka mid ah dadka laga jabsaday YouTube-kooda waxaa ka mid ah gabar la yiraahdo Adna oo channel-keedu weyn ee la yiraahdo Adna channel laga jabsaday isla markaana magaci laga bedeshay. Runtii waa arrin laga xumaaday aad ayaan uga xumahay. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi ku soo dhawaada mar kale muuqaal cusub isku soo noqod wanaagsan. Haddii ay tahay markaad kugu horeysay channel-kan ku soo dhawow fadlan subscribe saar. Muuqaalkana like saar haddii aad ka heshid asxaabtaadana la share gare si wax badan ay uga faa'iidaan. Waa huna muuqaalkan inuu wax badan soo kordhin doono. Bariyahan dambe waxaa soo badanayay in dad badan channel-adooda YouTube-ka laga jabsado. maaha wax cusub oo mar walba way dhacdaa oo caalamka dadka kale way ku dhacdaa in channel YouTube la jabsado sida loo jabsan karaba meelaha kale ee baraha bulshada ah laakiin markii la yiraahdo YouTube way ka saameyn badan tahay baraha bulshada oo YouTube waa meel dadka badankooda ay dhaqaale ka sameeyaan runtii noloshoodana qaar kamid ay ku tiirsan tahay sidee dadka waxaa galay ee u jabsadaan YouTube-yada qaar ama sidee ugu suurta gashaa inay YouTube jabsadaan sidee u fududahay in YouTube channel-kaaga la jabsado muuqaalkan ayaan kugu wadaagi doonaa dhamaysta ilaa dhamaadka channel YouTube la jabsado way adag tahay sina way u fududahay mararka qaar waxaa macquul ah in adiga qofkii wax jabsanayay aad gacanta u gelisid macluumaadka u baahnaa sidee ku dhici kartaa midaas waxaa jira wax la yiraahdo social engineering oo dadka hackerada ay kugu sameynayaan oo ah inay dabin ku dhigaan isla markaana ay isaga ka dhigaan dad wax sponsor gareeyo oo ay kula soo xiriiraan tusaale email ayaa lagu soo dirayaa waxa la leeyahay waxaan nahay shirkadaas iyo shirkadaas waxaan rabnaa inaan waxaan noo xayeysiisid inaan sponsor gareeno muuqaalkada ayaan rabnaa lacag intaas la egna waan kugu siinayna waxay u muuqataa wax macquul ah waana sida badankooda dadka qaar ay sameeyaan oo wax waa la sponsor gareeyaa waan arrin jirto laakiin tuugada way ku soo gabadaan oo waa arrin dabin lagugu dhigi karo markii arrintaas lagu dhaho waxaa lagu leeyahay linkigan taabo si aad review ugu samaysid ama aad u aragtid waxa aan rabnay inaad noo xayeysiisid markii aad linkigaas ku dhufatidna macluumaadkaagi kumaba haysto oo macluumaadkaadi oo idil ayaga ayuu gacanta ugu jiraa sidaasna waad ku weyn kartaa oo waa mid ka mid ah sababaha aad ku weyn kartid YouTube-kaaga mar haddii macluumaadkaaga la helo YouTube-kaaga waa la bedeli karaa passwordkiisa sidoo kale markii u suurtagal in passwordkiisa la bedelo oo ay la wareegaan YouTube-kaagi waxaa haddana sidoo kale la sameynaya in channel-kaagi magacaba laga bedelo isla markaana laba iib geeyo oo la iibsado haddii aan la iib gelin xitaa waxaa macquul ah inay isticmaalaan dad badan ayaa jirta oo arrintaas ay ku dhacday oo channel-adoodii markii la jabsaday magacyada laga bedeshay muuqaaladina laga saaray dad kale ay isticmaalayaan qaar ka mid ah dadka laga jabsaday YouTube-kooda waxaa ka mid ah gabar la yiraahdo Adna oo channel-keedu weyn ee la yiraahdo Adna channel laga jabsaday isla markaana magaci laga bedeshay runtii waa arrin laga xumaaday aad ayaan uga xumahay waxaan rajeynayaa in channel-kaada uu ku soo noqdo dhawaan biidnillahi kariim dadka hackerada ah waxyaabaha ay isticmaalaan mid koowaad waa sheegnay oo waa social engineering-kaas lagu dhigaya dabinkaasna haddii aad ku dhacdid macluumaadkaada aad ku weynaysid midda labaadna waa mid kaloo macquul ah oo ah in tusaale ahaan website aad isticmaashay oo daatadaadi ah hayo ama cookieskooda waxa ay isticmaalaan oo daatada ay ku kaydiyaan haddii aad u ogolaatid website-kaas inuu daatadaadi uu kaydiyo isla markaana website-kaas la jabsado daatadaadi website-kaas ku jirtay waxay gacanta u galaysaa dadka hackerada ah sidaasna passwordada meeshaas laga helo oo lagu fiirin karaa YouTube-kaaga oo haddii isku mid noqdaan sidaas ayaa ku weynaysaa laakiin mar walba waxaa kugula talinayaa in passwordka YouTube-kaaga aadan kala mid dhigin passwordadaada kale ee aad ku isticmaashid Gmail-ada sidoo kale waxaan kugula talinayaa qaybtaada about-ka email-ka kuugu jiro oo aad ugu talgashay dadka inay kaala soo xiriiraan inaadan ka dhigin midka YouTube-ka kuugu samaysan taasna waa arrin muhiim ah oo loo baahan yahay inaad iska ilaaliso qaybtaada about section-ka email-ka kuugu qoran ee ah igala soo xiriir dadkan ama ha noqdo email business ah waxaa fiican inaad ka dhigatid email business oo nooc kale ah oo aan ahayn midka YouTube-ka aad ku isticmaashid haddii isku mid ay yihiin halkaas waxaa lagu heli karaa YouTube-kaaga Gmail-kiisa kadibna way fududahay in password-ka la helo markii channel-kaaga ay jabsadaan tuugada maxay sameynayaan kow waxay sameynayaan in magacii ay ka bedelaan laba inay fiidiyoyaasha oo idil ay dhileedaan marka kalena inay iibgeeyaan oo ayba gataan ama ay isticmaalaan waxaa macquul ah inaad channel-kaaga dib u heli kartid haddii aad la xiriirtid YouTube-ka laftirkiisa oo ay kaala shaqeeyaan sidii aad ku helayd YouTube-kaaga dadka badankooda channel-kooda way helaan laakiin waxaa adag haddii fiidiyoyaasha laga dhileedo in fiidiyoyaashaada aad dib u heshid laakiin waa macquul inaad channel-kaaga lafihiisa aad heshid sidee marka aad isaga ilaalin kartaa dadka hackerada ah oo YouTube-kaaga ama channel-kaaga aad uga dhigi kartaa mid secure ah oo aad u adag oo aan la soo haweysan sidee uga dhigi kartaa
marka ugu horeyso waxaan kugula talinayaa inaad two factor authentication waxa la yiraahdo aad furatid walow ay qasab tahay baryahan dambe oo YouTube-ka aadan wax monetization aadan ku sameyn karin haddiisan on ku ahayn two factor authentication-ka waa security sahlaya in aanan cid kale si sahlan aysan ku galin YouTube-kaaga kaas on ka dhigo waana mid aad muhiim u ah midka xigtana oo ah qaybta security-ga labaad ee aad u baahan tahay inaad sameysid si channel-kaaga aad uga ilaaliso hackerada waxa la yiraahdo channel level permission oo ah YouTube-kaaga ayaa tagaysaa qaybta setting-ka ayaa tagaysaa kadibna permissions meesha ay ku qoran tahay ayaad ku dhufanaysaa meesha channel permission-ka oo ah dadka isticmaalayo YouTube-kaaga ama kugula jiro haddii aad dad u ogolaatay ama haddii ay jiraan dad si qaldan ku soo galay meeshaas halkaas ayaad ka arkaysaa inta qof ay YouTube-kaaga kula isticmaalayso halkaasna waad ka saari kartaa dadka kale ee aadan u baahnayn waana channel level permission wax la yiraahdo qodobka saddexaad oo YouTube-kaada ku adkeyn kartidna waa inaad samaysatid password aad u adag marka lagu leeyahay waa wax ka badan 8 xaraf iyo wixii ka badan waa in isugu jiraan xarfaha caadiga ah iyo sidoo kale waa in isugu jiraan waxa la yiraahdo special characters-ka numbero alphabets-ka caadiga ah waa inay mix ahaadaan oo wax isku dhex jira ay ahaadaan lama rabo password fudud oo tusaale ahaan Maxamed 123 hebel 2244 waxaas looma baahna password adag oo isku dhex jiro ayaad sameysanaysaa oo very strong taasna aad ay u caawinaysaa inaan password-kaaga aan la geesgareyn qodobka afaraadna waa inaad iska ilaalisaa sidaan hore u sheegnayba dadka scammerska ah oo dadka dabinka u dhigo oo kula soo xiriirayo oo isaga ka dhigayo tusaale ahaan mararka qaar waxa la isaga ka dhigi karaa YouTube-ka laftirkiisa waxa la isaga ka dhigi karaa Google AdSense laftirkiisa waxa la isaga ka dhigi karaa shirkad kale oo rabta inay aad u sameysid xayeysiin sidaas la mid ah Gmail-ada ay soo diraan YouTube iyo sidoo kale Google AdSense-ga waxa waaye youtube.com iyo google.com wixii intaas ka baxsan waa kuwa khaldan ee fadlan iska ilaali tusaale haddii ay kula soo xiriiraan dad ay email ku soo diraan emailkaas ha furin ilaa aad ogaatid channel-kaaga inay jiraan wax alert ah oo soo wajahay ama fariimo lagu soo diray oo sheegaya in security alert uu jiro channel-kaaga markaas kadibna haddii aysan jirin wax alert ah waxaa fiican inaad si taxadar leh emailadaas aad isaga fiirisid maaha inaad ku degdegtid linkiga taabo lagu dhahaa iska taabatid runtii in channel-kaaga la jabsado adiga koowaad ka noqon kartaa oo gacantood u gelin kartaa hackerada isla markaana adiga ayaad ka ilaashan karo oo waxaad oga ilaashan kartaa inaadan dabinka lagu dhiga aadan ku dhicin midda kale ee xusida mudan waxay tahay haddii ay wax kugu dhacaan oo channel-kaaga ay khatar ku imaado inaad ficil aad sameysid sida ugu dhaqsiyaha badan lama rabo inaad ficilkaaga u daaho oo aadan maaragtay markiiba aadan ka falcelin wixii kugu dhaco YouTube-ka la xiriir isla markiiba oo aad khalkhal dareentid ama YouTube-kaaga lagala wareego haddii aad la xiriirtid way ku caawin doonaan way kuu soo jawaabi doonaan waxay ku dhihi doonaan steps-kan raac si aad password-kaaga ama aad channel-kaaga u soo ceshatid inay waqti qaadato waa laga yaabaa laakiin marba haddii hawsha aad YouTube gacanta u gelisid waxay u badan tahay 90% in channel-kaaga lagu soo celiyo waa haddii waxa ay kuu sheegayaan ee steps-ka ah raacdid sida saxda ah loo baahnaa wax walba soo gudboonaadana waad u sheegaysaa ayaga oo email ayaad u diraysaa dabcan ayaga ayaa ku hagi doono dhowr bari kadibna ama 3 bari kadib ama 4 bari kadibna way kula soo xiriiri channel-kaagana waxay u badan tahay inaad soo ceshatid si dadka badankoodaba ay sameeyaan oo ayna dhacdo runtii intaas ayaan kusoo gabagabeynaya laakiin muhiimadda ugu weyn ee la rabo inaad fahanto waxay tahay in kow aad isticmaashid password adag laba aad iska ilaaliso dadka iskaamarada ah oo emailada khaldan kuu soo diraayo oo kula soo xiriirayo inaadan dabinkooda aadan ku dhicin sidoo kale qaybta about section-ka ah in emailka kugu qoran aad ka saartid oo aad ka dhigtid email kale oo aan ahayn midka YouTube-ka kugu samaysan haddii khatar ku soo wajahdana oo YouTube-kaada cilad ay ku imaado ama aad dareento in YouTube-kaaga lagala wareegay isla markiiba la xiriir YouTube-ka oo email u dir waxaan rajeynayaa inay ku caawin doonaan channel-kaagana aad dib u heli doontid muuqaalka intaas ayuu ku egyahay waa ku maasanahay daawashada muuqaalka inta haddaa soo gaartay muuqaalka like saar asxaabtaada la share garee si ay wax badan uga faa'iidaan intaan ku kulmayna muuqaalkan muuqaalka xiga waxaan idin leeyahay stay safe Ramadan Mubarak